اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح وناكسن ساكا waxaan kugu yeeray halkan waxaan ku qabanaynaa shir jaraa'id oo ku saabsan 100 maalmood baa ka soo wareegatay markii anigu dawladda aan ku soo biiray 100 kaas maalmood dawladdii aan ka mid noqday wixii ay qabatay iyo xaaladdu hadda sida ay tahay ammaanka siyaasadda galmudug ayaan rabaa inaan wax yar oo warbixin kooban idinka siiyo. waxaan nasiib daraa waxa weeye dadku aad xogogaal uma aha wax badan ayaana ka maqan oo inay ogaadaan loo baahan yahay. haddaan ku bilaabo anigu waxaan ka mid ahaa dadkii 2006 halkan yimid oo aasaaska galmudug 2006 dhigay. waxaan halkan ugu nimid qabiil degan oo daris leh maamula oo asagu ismaamula oo odayaashiisu maamulaan. waxaan u keennay waxaysan aqoon oo dawlad la yidhaaho iyo maamul. maamulkii aan u keennay wuxuu ka wareejiyey mas-uuliyaddii odayaashii iyo qabiilkii uu ka wareejiyey mas-uuliyaddii. mas-uuliyaddii waxay ku wareegtay dadkii maamulka noqday. 5 sano kadib waxaa muuqata weli in odayaashii la baacsanayo oo aan leenahay war odayow iyo qabiilow iyo kan maxaad u qaban weyday iyo kan maxay ahayd. in la qirtaa loo baahan yahay wixii lagu fashilay. odayaasha haddii maamulka lagala wareegay waxay ahayd in dadka maamulka qabtay ay wax maamulaan ayagana adeejiyaan oo mustawahooda ay qaataan. taas waxaa weeye waxaan odhan karnaa galmudug kuma aysan guulaysan inay maamulkii dhidibada u taagto. waxna tari mayso marka in lays eedeeyo oo la yidhaahdo reer jufe hebel baale iyo reer hebel baale iyo kanay tahay. in la helo dhaqaale ummaddu nabad ay ku ganacsato intiiba galmudug waa gabaabsi. taas waxaan saarayaa xukuumadda aniga aan ka mid ahaa iyo kuwii ka horreeyey yaa mas-uuliyadda qaadaya. micnuhu ma aha in odayaasha ceebka saliin ay yihiin. waxa weeye waa lahaan karaan qaladaadkooda laakiin wixii maamula iyagu ma ay lahayn. xaaladda hadda aan marayno ammaanka galmudug wuxuu marahayaa meesha ugu liidatay. maalin walba magaalada dad baa ku dhinta 2, 3, 4 la iska dilahayo. wax ka xun lama arko in qofka bani aadamkan noloshiisu raqiis noqoto oo iska dhinto oo ninka qoriga leh taliyo. sababtii dawlad maamul loo sameeyay waxay ahayd in taas laga badbaado. lagama badbaadinin. maxaa hortaagan xaqiiqada qof waliba waxbuu leeyahay laakiin runtu waxa weeyaan maamul jilicsan ayaa sabab u ah in nabadgelyada la waayo. haddii maamulku adag yahay nabadgelyada waa la sugi karaa. galmudug waxaa ka dhisan 3 hay-adood. mid waa sharci dejinta waa baarlamaanka sida dastuurku qorayo. midna waxaa weeye xukuumadda oo fulinta ah. midna waxaa weeye garsoorka.
waxaa hadda burburay oo aan shaqaynin waa xukuumaddii weeye madaxtooyadii iyo wasiiradii ma shaqeeyaan shaqo wanaagsan ma qabtaan waxa ka jirana waa ogtihiin oo ma aha wax qarsoodi ah labadan hay-adood oo kale haddii lagu fikado waa nasiib baarlamaanka iyo garsoorka waxaa loo baahan yahay saddexdooba inay shaqeeyaan si dadku u guulaysto waxaa taalla dadka xukuumadda ka tirsan oo anu aan ka mid ahaa wixii khaladaad hor dhaca gudaha in lagu saxay ahayd waad la socotaan xukuumaddu inay gabtay oo shacabkii gabtay ammaanka gudaha ee magaaladan gobolkii Hobyo oo ay burcad qabsatay oo ogtihiin inaysan cidina hadda ka talinin dariska oo xiisadiisi taagan tahay oo ay shalay u dambeysay daraad u dambeysay in wiil la soo afduubtay dugsiley ah maxaa ku xiga markii ilma dugsiley la soo afduubto sumcad xumada waxaa ka daran waxaa ka imaanaya in dadkii ilmaha dhalay ay soo duulaan ma waxaan oranaynaa qolaan nagu soo duushay markaas adigu ma ogolaan lahayd in ilmahaaga inta la afduubto meel lagu haysto kale ma ogolaateen arrimahaas dadka waxgaradka ah inay danqiso weeye in laga gelidoodo weeye sida loo xalin lahaana in la isku geeyo weeye xalkeeduna waxaa weeye maamul cudud leh oo wax qaban kara in la helo